kulankan oo saacado qaatay isla markaana saxaafaddu ay dibajoog ka ahayd ayaa waxaa laga hadlay arrimo badan oo labada dhinac khuseeya iyadoo guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha iyo doorashooyinka Jubbaland ay ka warbixiyeen hanaanka shaqo ayagoo la wadaagay mas'uuliyiinta ka socday xafiiska qaramada midoobay gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha iyo doorashooyinka Jubbaland oo kulanka kadib warbaahinta la hadlay ayaa sharaxay wixii ay ka wada hadleen mas'uuliyiintan ka socday xafiiska UN-ta ee magaalada Kismaayo asagoo dhanka kala sheegay in wax walba sidii loogu talagalay ay u socdaan halkan aynu soo booqdeen inaan isbaranno isla markaana aan warbixin ka siino guddiga iyo goorta la aasaasay iyo waxyaabaha hor yaalla waxaan ka wada hadalnay maxaan ku dhahaa waxyaabahaas iyo wixii as UN kaga aadan waxaan u sheegnay in ay hawlo culusna hor yaalaan oo ay ugu horeyso inaan guddiga iyo hawlgalkiisa odayaashii iyo maxaan ku dhahay inaan Kismaayo keenno inaan xildhibaanadii xullo iyo inaan xildhibaanada soo xulaan odayaasha ay soo xulaan iyo inaan dooranno guddoonkii baarlamaanka kadibna madaxweynihii Jubbaland la doorto waxaanu u adkaynay in ay naga go'an tahay inaan muddadii loogu talagalay oo ahayd bisha August haddii la yiraahdo sanadkan inaysan doorashadu aysan nala dhaafin ayagana aad iyo aad baan arrimahaas aan isugu afgaranay waan uga mahadcelinaynaa inay nagu soo booqdaan xafiiska mar labaad Dr. Magnus oo ka socday xafiiska qaramada midoobay ee magaalada Kismaayo ayaa asna sheegay in ay hawl wanaagsan socoto isla markaana wuxuu rajo wanaagsan uu ka muujiyay qaabka uu shaqeynayaan guddiga doorashooyinka ee Jubbaland. I'm Magnus, I am UNSOM head of office for Jubbaland. It has been a great magacaygu waa Magnus waxaan ahay madaxa UNSOM ee Jubbaland farxad ayay ii tahay in aan halkan joogo waxaan la kulmay saaxiibada guddiga doorashooyinka Jubbaland waxaan u hambalyeynayaa Jubbaland horumarka ay ka gaadhay amniga iyo siyaasadda runtii jidka horumarka ayay ku tallaabsatay qorshaha doorashada Jubbaland meel wanaagsan ayuu marayaa waxaan rabnaa in aan garab istaagno horumarka ay hore u qaadeen dhanka doorashooyinka It has to be a Somali-led, Somali-owned process. doorashada waa mid Soomaali u gaar ah annagu UN ahaan waxaan ku garab taaganahay horumarinta hawsha ay wadaan ayaga ayaana ugu dambeyn go'aanka iskale. This is the first step, getting the electoral commission in. Then we have to get the assembly, then we eventually have to move to presidential elections. waxaa hadda bilaabanaysa xulidda ergada waxaana la dooran doonaa xildhibaanada iyadoo ugu dambeyntii la guda geli doono doorashada madaxweynaha waad mahadsantihiin dhammaantiin and I really want to support you to the best we can for this very very important step. Thank you so much. Mas'uud Cabdullaahi Aadan TV Universal magaalada Kismaayo.